Ethiopia halkaasi oo ay kaga qayb galayso shir ay soo qaban qaabisay urur goboleedka IGAD oo 7 bishan ka furmi doona wadanka Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda oo ay garoonka ku sagootiyeen wasiirro uu ka mid ahaa wasiirka garsoorka iyo cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abiy Nuur iyo mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ayaa intaysan ka amba bixin garoonka Muqdisho shir jiraayad oo ay ku qabatay qaybta soo dhaweynta ee garoonka ayaa waxa ay kaga warbixisay ujeedka socdaalkeeda iyo shirka ka furmi doona wadanka Ethiopia saaka waxaan u baxayaa Addis Ababa dalka Ethiopia oo aan u tagayo shiraan caadi ahayn oo ay qaban qaabisay IGAD lagana hadli doono stabilization plan wixii loo oran jiray oo ahaa qorshihii sanad iyo bar ka hor ay madaxweynayaasha IGAD ku gaareen go'aan ah in dejinta Soomaaliya iyo nabad raadinta Soomaaliya stabilization plan loo yaqaan kaasoo aan in badan ka doodnay oo ay dawladda Soomaaliya federaalka Soomaaliya ku adkaysatay in aynu samaysanay annagu plan qorshe aanu ku dejino dalka muran badanina ka yimi taa iyaga IGAD oo aynu haddana xubin ka nahay ay maxay haytay qorsheeyeen iyo kii dambe aynu qornay oo asalkiisuna uu yahay 6 rukun ee inoo ahaa prioritieskka shirar badan baa laga galay dhowr jeer baanu isku qabanay Nairobi iyo Addis Ababa laba goor baa dib loo dhigay shirkaas imikana waxaa laga dhigay bisha 7deeda ugu dambays insha Allah mar kale aan ku soo guuleysan doonaa waxa weeye Soomaaliya jiritaankeeda bayska yani iyo dibudhiskeeda weeye inaan madax banaanahay oo dawlad rasmi ah nahay ayaanu niri haddana leenahay kuna adkaysanaynaa IGADna iyadoo ma garanaysaa run ahaantii ay dhinacyo badan ka eegayaan oo dalalka jaarka ay ka warwarsan yihiin xagga nabadgelyada ayaa la leeyahay aan marxaati ka noqono aan wax idin la qabano marka arrinkaas aan u tagayaa